adiga iyo carruurtaada. Daawo talooyinkan kooban oo kaalin weyn ka qaadan doona korriimada carruurtaada. carruurtaada ha siin wax kasta oo ay ku weydiistaan, sababtoo ah waxa ay weynaan doonaan iyagoo aaminsan inay xaq u leeyihiin wax kasta oo ay rabaan in la siiyo. 2. ha u qoslin haddii ay ku dhawaaqaan erayo akhlaaq xumo ah, maxaa yeelay waxa ay weynaanayaan iyagoo aaminsan erayada akhlaaq xumida ah inay yihiin wax caadi ah oo lagu qoslo. 3. ha u ogolaan inay ku kacaan fal ka soo horjeedo dhaqanka bulshada, sababtoo ah waxa ay weynaanayaan iyagoo aaminsan in bulshadu aysan lahayn shuruuc diidayso falalka xun. 4. ha u ogolaan in adiga aad dayactirto ama aad saxdo wax kasta oo ay kharribaan. waxa ay barbaari doonaan iyagoo aaminsan in wax kasta oo ay ku ciyaaraan ay cid kale mas-uuliyaddeeda qaadi doonto, lagana rabo inay saxdo, iyaguna aanay mas-uul ka ahayn inay saxaan wixii hallaabo. 5. ha u fasixin inay daawadaan barnaamij kasta oo TV-ga ka socda. waxa ay weynaanayaan iyagoo aaminsan inaanu wax farqi ah u dhaxayn carruurta iyo waayeelka marka la joogo daawashada iyo waxyaabaha lala falgalo. 6. ha u ogolaan inaad siiso lacag kasta oo ay ku weydiistaan xilli kasta, maxaa yeelay waxay aamini doonaan in lacagtu ay tahay waxa ugu fudud oo ay helaan, kamana shakin doonaan berri inay waxadaan. 7. ha samayn inaad la safato mar kasta oo ay khalad ku sameeyaan deriska, macallinka, booliska, gabadha shaqaalaha ee guriga joogta iyo waxa la midka ah, maxaa yeelay waxa ay weynaanayaan iyagoo aaminsan wax kasta oo ay sameeyaan inay sax yihiin, dadka kalena ay khaldan yihiin. carruurtu waa waxa lagu barbaariyo yaraantooda. 8. ha barin inay guriga joogaan marka aad aadayso adigu masjidka, sababtoo ah waxa ay weynaan doonaan iyagoo aaminsan inaan laga rabin iyaga wax cibaado ah. 9. ha u ogolaan inayna guriga ku soo dhoweyn waalidka iyo saaxiibada marka la soo booqdo, maxaa yeelay waxa ay weynaanta u arki doonaan iyaguna inay soo dhoweyn la'aantu caadi tahay, adigana berri kuma maamuusi doonaan marka aad booqato. 7. ha u ogolaan inay la xiriiraan carruur aad dhaqan xumo ku og tahay oo deriska ah ama xaafad kala degan ama waalidkooda, maxaa yeelay waxa ay la qabsan doonaan dhaqan xumadaasi, iyaguna waxay u arki doonaan wax caadi ah. ugu dambayn, ha uga sheekayn sheekooyin aan macno lahayn oo xusuus ku reebi kara, ee uga sheekay sheekooyin xigmad leh iyo siiradii rususha, si marka ay weynaadaan ay carruurtooda uga sheekeeyaan. talooyinka dhaqan gelib haddii carruur ay kuu joogto, kuna amar sidoo kale kuwa waalidka aad u tahay ee guriga jooga, lana wadaaga saxaabtaada. mahadsanid.